بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قدوميها جبهة ودانك حرينة أوغادينيا إنجنير صلاح الدين عبد الرحمن حاج معو كنا هلا يا مقعة قراها السراء جبهة ودانك حرينة أوغادينيا ومرك الله صهوق قابل الله يقان جوحو إن ما أنت هرتينا كأخريو ورسحافة ذات كالصوصات وحا عد ونمقد كجرين إلي ONLF قرب كعاصمرة أي تاريخ مركز أهيد كو إلا واتك بيش الطبنات لبدا كون إيسيديد يو طبنكا هشيز نبادات لصحيحاتي دولة فدرالك إيتوبيا هشيز كاس أيان آد أصول وينينا وحانا آد ugu hambalyeynayna inay ku guuleysteen heshiis nabadeed oo lamid ah kii aanu dowladda Ethiopia la saxeexanay taariikhda laba ilaawanka ahaa oo ay ahayd 12 bisha October 2010 sideed sano ka hor macnaha waxa weeye iyagu waxay saxeexeen October 2018 annagana waxaan nabadda saxeexnay October 2010 sideed sano ka hor ayaan nabadda saxeexnay oo aanu ku kala saxeexnay dowladda Ethiopia magaalada Addis Ababa hotelka Sheraton kaas oo ay goobjoog ka ahaayeen beesha caalamka oo 29 dowladood wakiiladahoodii sida dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka, Ingiriiska, Jabaanka, Faransiiska, Jarmalka iyo kuwa inta ka badan oo reer galbeedka iyo dowladaha Carabta, Afrikaanka, Aasiyaatiga iyo waxa maalintaas lagu casumay oo goobjoog ka ahaa madax dhaqameedyada beelaha deegaanka, culamaa u diinka, aqoon-yahanka, dhalinyarada iyo haweenka deegaanka Soomaalida oo dhan intooda waxaa sharaf weyn inoo ah bulshada inaan xusuusino inaan horay u qaadanay nabad balse ay ka shaqeyn weysay xilligaas dowladdii ka jirtay heshiiska taariikhiga ah ee ay jooxo casmara saxiixday ayay marka hore si fiican isugu afkarteen madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar balse wuxuu dhameystirkiisa ku soo beegmay xilliga ay Ethiopia u dhalatay dowlad cusub ama waa cusub u dhashay oo mas'uuliyiin madax furan ay hogaaminayaan sida Prime Minister Abiy Ahmed gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia Mudane Ahmed Shide iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ama loo yaqaan Cabshir waxaan aad u soo dhaweynaynaa nabadii ay garabka jawxo ee casmara ku qaadatay casmara inkastoo ay 8 sano ka soo daaheen xilligii munaasabka ku ahaa in laga qayb qaato xasilinta deegaanka xaq ku raadinta qalinka iyo dardar gelinta horumarka deegaanka sida annaguba waagaas u garanay baahida ay shacabku u qabaan nabadda iyo horumarka ma hadda waxa iska leh ilaahaygi garansiiyay xaqa oo ka soo leexiyay go'aankii khaldanaa oo aan fiirsiga lahayn isla markaasna halka dhinac ahaa taas oo ay ku dhib qabeen shacabka deegaanka Soomaalida ogaadeen sidaa darteed ayaan idin leenahay mahad ha idinka gaarto mar haddaad idinkuna nala garateen oo aad damqanaysaan diyaarna u tihiin badbaadinta iyo horumarinta shacabka deegaanka Soomaalida ogaadeen waxaan u rajaynayaa mustaqbalka dhow iyo kan fogba shacabka Soomaalida deegaanka iyo dowlad deegaanka intaba inay ku guuleystaan nabad iyo horumar waarta inay ummadan u soo hooyaan ayaan u rajaynayaa waana mahadsantiin